السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنيقو وعليش channelka daawanaysadna waa Alish Official fadlita markuu waraysan soo boqoto channelka subscribe like share comment soo dhe asxaabtan la wadaag Ramadan Kareem Ramadan Mubarak waxaa balo dhahabaadu ilaahay insha Allah maanta oo jidana sheekuna Alish ortiina fadhiyo hadduu ilaahay barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan doonaa oo ku saabsan yahay insha Allah waxaan isku weydiinayna su'aalo baaxaan weydiina idinka daawanaysaan su'aal weydiina waa kana sheekay su'aal ka raba jawaabaha inaad ku soo sheegtaan comment ku soo sheegtaan bal raba su'aalahan weydiina waa su'aalo oo diini ah marka haddii aad taqaanid yani su'aasha aad garanaysid inaad comment yani jawaabta aad ku soo qortaa بإذن الله كريم إن شاء الله تعالى بإذن الله كريم وكاشيق ونوبلا وحده بالله سؤالنا بالله إن شاء الله أي محل سؤال وهرسو كوبلا ودونا وحيها سام بعد عيسى وحتى هاي واحد شيكتا شهيدك وهري إسلامك قفك إسلامك وهري أو شهيدو وإنه علم واحد شيكتا شهيدك وهري إسلامك haddii aad taqaanid su'aashaas waxaa kusoo sheegtaa maxaa lahaa comment kusoo sheegtaa su'aashaas yani waa kasoo jawaabina su'aashaada laga sugaa adiga daawanaysid su'aasha laga baahan yahay inaad kusoo qortid commentiga su'aasha laba hadaa u gudubno wasaana dhahaysaa waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaan sanadkii murugada waxaad sheegtaa sanadka islaamka oo loo yaqaano sanadkii murugada waa su'aasha labaad waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaano sanadkii murugada maybe haddaad garanaysid waa inaad soo qorta comment su'aashaas jawaabteeda haddii aan u gudubno su'aasha saddexaad saan bay dhahaysaa waxaad sheegtaa yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina waxaad sheegtaa yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina Madinatul Munawwara su'aasha aad garanaysid waxaa lagaga baahan yahay inaad kusoo sheegtid halkaas iyo commentiga lagaga baahan inaad kusoo qortid haddaan u gudubno su'aasha xigto waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa jannada yaa uu horgalayo taas waa kaliya iska taqaanaa filan waxaad sheegtaa jannada yaa ugu horgalayo lagaga baahan inaad kusoo qortid jawaabta inaad kusoo qortid commentiga kusoo qortid okay su'aasha xigta waxay leedahay waxaad sheegtaa dambigii ugu horeeyay ee alla lagu caasiyo waxaad sheegtaa dambigii ugu horeeyay ee alla lagu caasiyo ama dambiga ugu horeeya la galo lagaga baahan yahay qofkii galay lagaga baahan yahay su'aasha jawaabteeda lagaga baahan yahay comment ku soo qordo ilaahay idmo haddii aan u gudubno su'aasha xigto haddii u gudubno ka wada maxaa la jawaabta xigto su'aasha saan dhahaysaa haddii aan u gudubno su'aasha xigto waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee qiblada u tukada waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee qiblada u tukada ana xataa ma garanayo waxaa laga baahan maxaa la inaad kusoo qortid halkaas iyo commentiga jawaabteeda laga su'aasha jawaabteeda haddii aan usii gudubno maxaa la su'aasha xigto saan ma dhahaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii ku dhashay kacbada badtankeeda waxaad sheegtaa saxaabigii ku dhashay kacbada dhexdeeda ama bartankeeda waxaad sheegtaa saxaabigii ku dhashay kacbada dhexdeeda ama bartankeeda haddii aad garanaysid maxaa la lahaa su'aashaas jawaabteeda waxaa lagaga baahan yahay inaad kusoo qortid commentiga dhexdiisa lagaga baahan yahay inaad ugu soo jawaabtid haddii aan maxaa la u gudubno su'aasha xigto saan dhahaysaa waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa
saxaabigii ku riyooday aadaamka. waxaad sheegtaa saxaabigii ku riyooday aadaamka. haddii aad garanaysid su-aashaas jawaabteeda waxaa lagaga baahanya inaad kaga soo jawaabtid commentiga lagaga sugaa inaad kusoo qortid aad dad kale ufaa'idaysid. haddaad garanaysid su-aashaas aad garanaysid ufaa'idaysid waxaa leedahay waxaad sheegtaa saxaabigii ku riyooday aadaamka. haddii aan usii gudubno su-aalaheena midda xigto waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa noocyada sadaqada tee ugu fadli badan. maadaama ay wada fadli badan yihiin sadaqada dhinac baxsatid ay midda kale kasii fadli badan tahay waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa sadaqada ugu fadliga badan. markii yani la bixiyo aad qof sadaqa siisid ama sadaqa aad bixisid waxaad sheegtaa sadaqada ugu fadli badan markii la bixiyo. haddii aad taqaanid su-aashaas jawaabteeda waxaa lagaga baahan yahay inaad kaga soo jawaabtid commentiga aad kusoo qortid jawaabteeda. haddii aan u gudubno su-aasha xigto waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa magaca faraskii ugu horeeyey ee rasuulka sala allahu alayh wasalam ku duulo. faraskii ugu horeeyey ee rasuulka ku duulo yani markuu dagaalkii waga oo jihaadka la jiraheed waxaad sheegtaa magaca faraskii ugu horeeyey ee rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ku duulo aa lagaga baahan yahay. haddii aad garanaysid markaa su-aashaas jawaabteeda waxaa lagaga baahay sidoo kale inaad soo jawaabtid commentiga halkaas aan iskaga soconaynaa dadka u faa'iidee haddaad garanaysid. haddii aan su-aalahan kale usii gudubno oo sii socono waxay dhahaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu ka xishoon jirtay. su-aasha xigtaa ma dhahaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu ka xishoon jirtay. maybe waa kaliya su-aashaas aan ma garanayo laakiin waxaa laga baahan yahay inaad culamada kasoo jawaaban loo baahan culamada kasoo jawaaban loo baahan yahay su-aashaas. waxaad sheegtaa asxaabigii malaa'igtu ka xishoon jirtay. walahi qaab uga xishoon jirtay qaab kale kaliya ma aqaano waa inaad soo sheegtaa haduu ilaahay masha allah. waxaa u gudbaynaa su-aasha xigto oo dhehaysa sida tan waxaad sheegtaa asxaabigii geeridiisu uu ku luxmay carshiga alle. waxaad sheegtaa asxaabigii geeridiisu ay ku luxoontay ama ku gariirtay casriga yani luxmatay ama ku gariirtay cashriga alle. haddii aad garanaysa su-aasha jawaabteeda fadlan waxaa lagaga baahan yahay inaad uga soo jawaabto halkaasi commentiga kaa sugeynaa inaad dadkaad sidoo kale aada u faa'iideyso insha allah. haddii aan usii gudubno su-aasha xigto waxay dhahaysaa kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee yidhi bismillaah ee aan waxba ku noqon. waxaad sheegtaa saxaabigii sunta cabay ee yidhi bismillaah ee aan waxba ku noqon yani waxba kasoo gaarin waa cabay biyo camal oo kasoo socda sun baa la cabay waa ka socda bismillaah u dhahay waa cabay ka socday. marka waxaa lagaga baahan saxaabigaas magaciisa lagaga baahan inaad sheegtid. hadda kugu celiyo su-aasha waxay dhahaysaa kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee yidhi bismillaah ee aan waxba ku noqon. haddii aad taqaanid su-aasha jawaabteeda saxaabigaas magaciisa hadaad taqaanid waa inaad uga soo jawaabto halkaas iyo commentiga iskala socono hadduu ilaahay masha allah. su-aalaheena intaana kusoo gogoobay hadduu ilaahay masha allah waa soo badin doonaa bidnillahi kariim. maalin walba taxanin oo hadoonta inaan isweydiino su-aala diiniya aan meeshan ku kala faa'iidaysano insha allah. haddaad su-aalaha taqaanid maxaa lahaa jawaaba aad garanaysid walaalaha usoo faa'iidee maxaa lahaa soo sheeg halka kusoo qoro commentiga kusoo qoro hadduu ilaahay idmo intaan kulan doono su-aalo saan camal oo qurux badan hadduu ilaahay masha allah. waxaa noo balan ah inaad hadduu ilaahay masha allah aad ku dhamaystaan soonkan basbas iyo barwaaqo ilaahay kiis kale loo gaarsiiyo nabad basbas iyo barwaaqo. intaad kusoo laaban doonaa videoan xigo amaan allah.